way taageerayaan fahmaysaa laakiin waa dad kooban oo dantoodii camalkoodii lifekoodii masiirkoodii intay lumiyeen qof bini aadan saa u daba taag walaalo qurbaa joogtaa maanta waxaa laga yaabaa inay faamilka gabadhaada ku joogaan oo garab istaagsan yihiin gabadh aanan hooyo ku haysan qurba aaba ku haysan ninkii garabka u ahaa oo keenay wadankana ka dhintay maqal mugdiya isku soo xirbaaleeyo stress isku fur ilaahay baan kugu dhaariyay iyo rasuulkiisa ya maya ku raacsan tahay dadka saa dhahay inta meel soo fariistaan aliye maxaana leedahay macnaha baaliyo madaxa dhululuqsan leh diga qof weyn oo qool leh oo caadi ahaan kugu ogaa oo gashay waa ka baxay commentiga haddaan ka baxay geeri aan geerina ahayn geerina ah dhankayga geeri ka ah baa la ii soo sheegay geeri dhaba maaha no maaha waa alaab saana waaye laakiin geeri taa geeri waxba iima dhaanto okay maxaan samayn karnaa hadda huddo alla waa halo macaano madaxa geeskaan u dheer maxaa ku sameeya anigana weligii kaalama hadle ilkahaaga idan badis ganar dheer baa walaalkaa ii bixiya adigana waxay leedahay ilkeyga horiga baale madaxa kala dhaadheer ciyaarta aqbal war jarmalki war haddaa wax kuu sheega ama qosasha jarmalki intaa u tegay baa iri ilkahan iga xira saa layiri walaale xiri mayno naga bax caaga gasha baa laygu yiri haa inaa toosiyaa rabay qaybtan kore saa u toosiyo waa toosmi waayeen waxaa walaalay ma cartaa inay jajabaan dhexda ka jabaan maya haddaba caagaa xiro nabaday macaag baa ku seexan karaa walaalo waa og tahay مضاعت عاكم الزعقرت الكهاجة كثر وحكونا وملهري هذا بكمل المياه يا الكهة مركا قسمت يا الكهة ارجع لي سيده يدي بقى وحر ما حريرين الحمد ما كان شيء سدود يس طف والله محبوقه مكره حبيبي يس بكو حريسين ورولك كوي قال عيار سياوي عبد الناصر ايه يا عبد الناصر الله ايوه دم اسكوك بركه السلام يا أدبن كوسلا مشروعك براد ايوه سوكا شرفه come on guys come on ما jirta adeer sug sheer garayste waa maxay come on dadkii dhiigga lahaa baa u sheer garaynaya asxaabteeda dhammaan meel alaala meesha joogta waxaa idin leeyahay jihaad fii sabiilillah baa gelaynaa yaa xabiib yaa أنا ما نحن كيف جهاد كأو كتير ويرو أو ما يقبل حلا هذا جهاد كتير لا أكو مغلى يا قدومي دقيسة قدومي حدي القراء عوا الله أما ناكت إلمها كو هيسا إلمها جوها هاويان أما أذو هاوي ما حسب ما ينلهد دماء ها كوا ها أنا ما حسب لي بدي كرو ما يصير هذا بقى قدرت بقى تاجن ما إذا صارت إذا أيوب كارلا قدرت بقى تاجن بقول إذا إنه ما كان وحوي وبحجة وأساسا لوير أما ناقت هذه المهاجة أما أذيها أنا قاعد إيرا دلانديرة تاي حرامي كان ماشي يشوف كلها كلها هاوي أنا وحايرة هذا لا يدوا لمن يسال يدوا هذه المهاجة أما نينكاga ninku ha tago waaye ninkii ay ilmaha hada tagna ninkii adduunka naag ku guursanaya samaha okay hadii macnaha ninka asaga oo tago naagtu ayada ma fadhee waa fadhina ani ilaahay igu og jacaylka waxba ka aqaana waa fadhiha inta fadhiyaasa u soo fadhiha walibana okay هذا ذاك أنا نغنى متى هذا قف نوع كالأهوة ما قلت 75 باهي دينا على كنتم ويا ذو قلبي قال هاي وإلو
waa ogahay xeega si uu weyn yahay isxas waxa ma jira naftu ii keen dhagayso wallahi ana waa filsan gabadh war ninka waa lagu bilaabay dee baasuka waa u sheekeeyay wallahi inaan sheekeynin aada ku salaamaya Samara Queen ninku hadduu dhintaanu waa u fadhinayaa laakiin ninkaygoo ifuray uma fadhinayo aniga laba mid baa kuu sheegaya dhagayso hal mid baa kuu sheegaya ninka xataa horta weligay warqad anaa dalbada hadday furin noqoto uma fadhinaayo aanoo 3 bilood oo cudada ii dhammaanin wax zig waa taagay alwaax mid meel laga keenay jirin laakiin hadduu iga dhinto ilaahay baa iga sarreeyna noloshayda ka tagayn waa asaga aakhira horta adduunkii baan ku cadaabay aakhirana waa ku cadaabay xuracayn anaa u noqonaya never ever inuusan naag arkay xuracayna ayo kaan 5 kun ku kala badinayna ayaas dumarka iyo ragga waa isku mid qof hadduu dhinto loo joojimaayo nolosha ma fahanti haddaba hal mid ku hayaa war i dhegayso garowe darisa ahayn aniga garow mihi laakiin walaasha garow lagu qabaa ma fahanti curadeena 2 gabdhood oo mataana odayga u dhashay gabadhiisa aniga ila eg wallahi inaan been ku sheegin iyo billahi tala naagtiisa waliba naag cusub markaas uu gursaday ee sida xanta ku maqlay sheekada mataane u dhashay 2 gabdhood way dhimatay gadaasheed ma siinaak waxa ma jiraan ya gadaasheed ma siin naag muusa ma yasaan ma ahani naag muusan de damcinba sada guure ma damcin iska day kuma fakir xataa kuma fakarinin qof caadi ma iga sheegaysid marka wala qaldan ilaahay baan ku dhaartay ilaahay baa iiga sareey subxaana qaadira baa ku iraaday iskuulka garowe ugu weyn magaciisi muxuu ahaa Sharmaako oo dooxada gadaasheeda ku yaalay iskuulkaas macalinka yahay walibana hudo dadku isku mid ma aniga karla ma aniga gurigeeda joogtaa ogow yaa aniga hadii hadalka ka dhac guriga jooga aniga karla ahaan hadda waqti xaadirkan la joogto kaliya fadhiya meeshan xaaskana dhagayso guriga waa haddaa dhahdi way dhimanaysa waa kadib gursana intee kugu dhufanay adoo soo haddaba dhib yaa kuu keen iska joog meeshaada dhagayso gambool iskool gambool walaa waa ifahmeen war dad la jamaaba meesha ku jira iskuul gambool buu macalinka yahay waa qof caqligiisa iyo maskaxdiisa taam u tahay oo dadka bulshada maanta garow haddii inuu hadda dhinto warka ma ay 2016 ay ugu dambeysay bulshada garow markii la dhaho dadka la jecel yahay macallimiinta la jecel yahay buuna ku jiraa وكان السحبة سوق هذا يا هدوي قلل بالغبطة ساسة وغيرين ما أنت من البدن تواكني هو إسلافي وارون إنه إسلافيه أنا أرتو وداع هاي إن أرتا إن dhagaysta Soomaali Maxameday hal mid baa raba caawin halka uga faa'iideysto uga hadlo Soomaali Maxameday adduun waxa la yiraahdaa iskugu hiiliyo aakhirana la iskugu hiiliyo adduun intii aakhirana yaa iskugu hiilna ilaaha dadkana kala saarayay hadalkii baa iga batay dhagaysta Soomaali Maxameday hadda ku qaldana ay qabta haddii la qaldan yahayna dadka qabsada Soomaali Maxameday gabadha la dhaho hodan online waa gabar wanaagsan qalbi nadiif leh asturan afkeedii adinkeeda laga nabad helo ninkeeda ilaahay baa oofsaday maanta haddii Soomaaliya joogi lahayd aniga waxa dhahaysaan afaareeda ma galeen qurbay joogtaa ma taqaanay tole ayaa ninkeeda Allah u naxariistay isaga u shaqayn jiray ma haysato qof garab ah oo maanta u shaqeeya ilmaheedii stress waa igu dhacay bay tiri guriga aan deganaa ilmaheed anu video ay leedahay baa arkay ilaa hadda gabadha isma maqal video ay leedahay baa arkay gabadha stress hadduu ku dhaco ilmaheeda laga qaadanaya dhibaato soo wajahaysa rafaada soo wajahaya in ay ka tagto wadanka gaalada oo ilmaheeda intay la cararto shalay ninkeeda Allah u naxariistay baa la korinayo garab taagna
shalay waxaa garab taagnaa maxaan ku dhahay toole ii sheegay toole ninkeeda ayadana ilmaheeda hooye u ahayd oo gurigay u joogto tiktokana youtubekana way ka shaqaysanaysa gacantana ilmaheeda way ku haystay laakiin maanta garab weyn boos weyn baa ka baxay waxayna ku qasban tahay ilmaheeda inay la cararto oo hooyadeed ay u geysato sababta maxay tahay dadka ay u soo caynayaan sababtu maxay tahay oo mideeda kale waxaa leedihin inta ilaahay ugu talagalay xaqa ay u lahayd wejigeeda lama arag sawirey leedahay lama arag maxaa ku dhahay tole way is asturtay markii xadkii uu ka degay mataqaanaay tole inta ay uu mootanaana gabadhii ma waxaa la leeyahay walaalay meel ha soo gelina noloshaada sidaa meel uga maqno gabadha ma in la waalaa la rabaa war soomaali maxamed horta qof bini aadana inuu wax ka dhaadhiciyo ma jecla ani inay ka dhaadhiciso oohinteeda banaanka soo dhigta ani hodan maan jeclayn laakiin way dhacday hodan waa gabar walaashiin ah hodan naagaha daba taagan oo intay meel u soo fariistaan dhahaya naayaa ninka maada jeclayn markuu dhintay baa war ammaan ha siiyaan war ammaan gabadha maskiinta ha siiyaan gabadha ilaah baan iku dhaariye daciif qof ah yaa baa laga faa'iidaysta gabadha daciif naag ama naag kartile oo dadnimo leh oo hooyadeed alxamdulillah maanta iyo ubadkeeda u geysatay waaye oo xaqa iyo baadilka qurbaha ka jira iyo dhibaatada ka jirta la dagaalanto ilmaheeda la carartay oo maanta kugu soo koraan halkaa istiri waaye gabadha ammaan ha la siiyo oo u heeliya ilaahay inta ka baqdaan 500 ba igu daawanaysaane u heeliya gabadha garabkeeda istaaga qof bini aadan ah maanta aniga huda ahay qof bini aadana noloshiisa meel inta u soo istaago kama sheekaynayo waa qalad waa forbutan in qof bini aadana noloshiisa aa ku xukuntaan taada kale gabadhan maanta haddii soomaaliya hadday joogta haa laakiin maanta qurbay joogta ma waxaa la leeyahay naaqol isku soo xiro waalo ilmaha gaaladu ha kaa qaadato miyaa la leeyahay ammaan ha la siiyo gabadhaas gabadha ammaan ha la siiyo oo soomaaliya u hiiliya ilaahay inta ka baqdaan xaqa garab istaaga oo u hiiliya gabadhaas waa mahadsan tahay waa ku maqlayay ani waa arkay oga ku arkay sababta ay u oynaysane ma fahanta soomaaliyay maya iga qaadin xasaan shirmaake soomaaliyay aamus sidii hiddo qaata oo dadka nabadgeliya ilaahayna ka baqa ما وادت كوبان شعبك ما شعبك ويلا جيران way taageerayaan fahmaysa laakiin waadad kooban oo dantoodii camalkoodii lifekoodii masiirkoodii intay lumiyeen qof bini aadan isa u daba taag walaalo qurbaa joogta maanta waxa laga yaabaa inay faamilka gabadhaada ku joogaan oo garab istaagsan yihiin gabar aanan hooyo ku haysan qurba aaba ku haysan ninkii garabka u ahaa oo keenay wadankana ka dhintay maqal mugdiya isku soo xirbaalleeyo stress isku fur ilaahay baan kugu dhaariyay iyo rasuulkiisa yaa maya ku raacsan tahay dadka saa dhahaya intay meel soo fariistaan ana ku raacin ilaahu ana ku raacin ma baadilkaas aan u jeedan ku raaci karaa idab yeesh hadda waayahay xaqa in afka laga qabsado ma ahane gabadha ammaan ha la siiyo gabadhaas 500 ay ku daawanaysaane shacabow nacagta soo hadal qaada nin maba soo hadal qaadaya nin maba hayste nacagta soo hadal qaada inta u gashaan jawaabteeda siiya markay aragto maasi commentiyada ee qalqashayada banaanka mareysay gabadha oohinteeda marka arko waa naxay abow inta waxa ninka marka ku qabo markuu dhinto waqti ba xadad waxa u leedahay inaad wajigaaga xataa banaanka keenin dharku kugu ogaa dharkuugu dambeeyo aa dhaqantid ayaga nadiifsati xiratid intii way samaysay social media mudday ka maqnayd qalad waaye in mataqaana abow la sii dabagalo gabadhii nafta loo keeno qaaq looga